أديك أساسي كهملهن ماشان إلهي وإحنا لهون لنا مجران واحد استقدادهم لنا مجران جدا وحال قبل الله بي مرينو اسبتالك كيسني هبين مدو آدميست وأنا اسبتالكي هالبولها هاي بيا كجرا عرضنا وحال لك سوق هذا جنب جيس عيدنا وحال لك سوق هذا جنب جيس جاينا وحال لك سوق هذا جنب جيس وحانو قبائنا نحقرنا فإنه إنك سوون مقالة هاي وغويق مقدشان كسوقلنا إلا مقالة حمر جد أن قادنو أو وحكو قادنو أنبان ميت كو قادنا ما هيسانو قددو نقضي بيانا قريقيي وأركي كرتين جد كان بلعد يسكو حرا ورجال هذا كل أرشد فقح أركا جد كفقح هو بيحاني كي ما تصو أركا وإحنا لقب تمجران عن شورتنا وابحنا معارض منهن لكن وحانو قبنا دقمويك كالي إنك حق بدنا هاي وقرنا العدالة حنا ومدى وحانو الشيقا يا أبقى الإسبان إنا يسكوت الشطو يسيو مادان وحقب صدان أغوانيهان كيرا قبل هيرا أضياء الشارع سيدا وحويا اللي موجودين اسبتالك تي بدا هي جودانك هي ضاعونك سيدي سويا الملسن هل شبق مسار اسكولك محمود أحمد علي هو برقة وين مقالة مالها أوجه البوليسن ومالها ما أنت أوقف فالحون ولا ضيكرين عن شورتنا وابحنا وحنا سيدر نجح عصبان على صاقدق وحنا قال جري مقالة مقدش نجح عصب وكوبه هنا على صاقدق أول مقالة الله قبل نجح حل كوبه هنا على صاقدق إردهنا على صاقدق لبعتوا ويفر بدن تاي مثل سوق وبكرر معهن أصل كسوي كتمت دقنك أو لواي كتمت أنا waxaan jeclahay abgaal ismaa inuu dhaqankiisa helo sidoo ugu dhaqsiyaha badan waqti badan ma qaadanayso hadii daacad laga yahay hadii haran imaam daacad uu ka yahay waqti badan ma qaadanayso saas daraadeed waxaan rabaa markuu horeyso waxaan ku baaqayaa midnimada abgaal ismaan abgaal ismaan waxaan ugu baaqaa marka horeysa midnimo dal iyo dibad meeshuu joogo waxaan ugu baaqayaa midnimo in mid qof walba oo abgaal ismaana qofku rabo ha ahaado inuu noqoyo qof abgaal ismaana una taagan midnimada abgaal ismaan in laga wada shaqeeyo dal iyo dibad inta abgaal ismaan u leeyihiin waxaan rabaa halkaan maanta odayaashana inay ayidi doonaan rajaynayaa ay yani baaqigaas inay ayidi doonaan haddii ilaahay idmo inta inaga maqnoona fiirsanaysan sidoo kale inay ayagana ayidi doonaan waxaan maanta rabaa inaan ku baaqo maanta in maadaama dhibaato fara badan aan soo marnay 10 sano kor isii dhaafayso dhibaatadan haystana ay uu asal u yahay hoggaan la'aanta ay tahay waxaan rabaa maanta inaan ku baaqo golaha dhaqankuna ay la qabaan in la qabto shirweyne beesha abgaal ay isugu imaanayso shirweynahaas oo looga tashan doono arrimaha abgaal ismaan guud ahaan ka soo bilaabo dhaqan ilaa arrimaha kale ee ku xigo waxaan rabaa gogashaas inaan yani ku baaqo inay qabsoonto golaha dhaqankuna uu sidoo kale asna uu ayido baaqana asagana wax ka jeediyo waxaan ku baaqaynaa hadduu ilaahay idmo in gogol abgaal ismaan la qabto shirweyne abgaal ismaan midnimadiisa dhaqankiisa dhinac kasta arrimaha jira looga hadlaayo in gogoshaas la qabto sida uu dhaqsiyaha badan in lagu qabto qabadaas oo ah in dhagxaan lagu gooyo hablahayna duurka ay ku umulaan halkaas ay ku dhalaan ayaa caqabada koow ka mid ah waxa habeen haday tool maarta la soo qaado waxa lagu leeyahay la laabo halkaada kala laabo ma ansaxayso iska laabo
duurkay ku dhalo hayaan marka madaxweynaha nabadoonnimada shalay oo noo sheegay oo maarta magaalada ku jira aniga madaxweynaha iyo nabadoona ahay horta waan ka rabnaa mideeda kale wuxuu yiri dhagxaanta waa in ka qaadaya ma jiri doonaan maadaama asaga marka sartan uu ku jiri madaxweynaha xashiiq la tartamay dhagax ayaa loo dhahay asagaaba ka dareeba dhagxaanta asagaaba nooga dareeba waa noo sii badiyay asoo nagu sii turjiyay marka waxa haweenka xataa foolaha habeenka hadii la yimaado in uu diido ayuu maarta jirto ciidamo kaysaday oo lama mari karaba duubabka ciilahaaya waa run waxa waaye wax badanaa batay wax badanaa nagu batay waxaas badan ay arkeen marka madaxweynuhu ma ogaan leenahay madaxweynaha ma oga looma sheegin madaxweynaha waxa la yiraahdaa dalku waa sidii la rabay jidadku waa furan yihiin la yiraahdaa wax wasaqo dhixyaal malaha la yiraahdaa waxaas madaxweynuhu ma oga laakiin nabadoonyadu waa ogyihiin madaxweynuhu waxaas inuu ogay waxa la yiraahdaa oda iyo umul wixii ogyihiin ma sheegan intaas waa ka cudur daara duubabkan xanaaqsan midda kale laftirkeera haddii aan gawdhahno haddaan gawdhahno waxa la yiri caasimada Soomaaliya iskala waa bilicdi waa sax waqooyiga Muqdishona Soomaaliya degta maahina abgaal ma dego laakiin waa gogashi sida Sheekh Xuseen markii horeba uu ka hadlay abgaal waa gogashi dibka haduu dhaco nimanka inay sheegaan la rabo waaye waxay u sheegayaan waa Soomaali caasimaday wakiil ka yihiin dawladday u qaabishay yihiin saaninka deegaanka ah waxa waaye wax walba inuu ka hadla asiga laga rabaa umada Soomaaliyeed marka waxaan u sheegaynaa oo waqooyiga Muqdisho degan dibka ka jira waqooyiga Muqdisho waa fara badan yahay madaxweynuhu ma oga waxaan leenahay madaxweynuhu soo istaago ha aragyo wadooyinka ha maro ha socdo fatahada beledweyne loo aaday madaxweynaha waxaan ka codsaynaa inuu magaalada dhex maro oo indhihiisa wax ku arko marka maqaabki waa weynay meelaha kale waa loo dhisay 5 maamulada dhisay goboleed anaga maqaamki waa weynay saas tahay waxaan u safraynaa anaga yaan ku gooshiyo xulina aslanahay maanta meel calanka Soomaalida shanta gees ka tagan yahay waxa gobolka Banaadir umada kale maamul gobolka samaysteen calamo gooniye samaysteen ay kuna calanku u taagan yahay laakiin calanka ay ku dareen anaga kaay wali shanti oo xidigoodo ka taagan yahay waxa waaye dawlad jacayl waxa waa kala sooni waxa waaye in umada isku keenna inaan gooshina meelaha kale oo Soomaaliya maamul goboleedeeda markii siyaasadda isku qabto dawladda iyo dadka oo siyaasiyiin la isqabto marjac loo noqdo waa guurtida annaga haddaan guurtida Muqdisho dawladuna ma tixgelin muhiimkeedu waxa ka hadlay ma sha Allah odayaasheena beesha abgaal Cismaan ayagaana u wakiilana ayagaana u xil saaranay horta Muqdisho waxyaabo badan oo waxa ka jiraan aan loo dul qaadan karin Muqdisho saa ognahay sida shalay ahayd iyo sida maanta farq weyn u dhaxeeyo hadda anaga dumarkana waxyaabo badan aad u daranaa jiraan oo hadda halkaan lagu soo koobi karin laakiin intii muhiimka ahayd waxa ka hadlay odayaasheena qaaliga ee sharafta badan aad iyo aad u salaamaya insha Allah waxaan rajeynayaa kulanka dambe ee shirka weyn la isugu imaado inaan si fiican uga hadli doono ma sha Allah dhaqanka aad iyo aad iyagaba aad ugu hormaray oo wax walba sheegay marka maadaama ay saas tahay ما شاء الله الحمد لله aad iyo aad ayaan uga mahad celinayaa xafladan sharafta badan oo nalagu soo dhaweeyay ما شاء الله saxaafada idina aad baan u salaamayaa waxaan ka hadlayaa abgaal wuxuu leeyahay dhaqanna waxaan ugu dambeeyay mar hore aad baan u qiireysanahay run ahaantii markaan soo xasuusto imaan maxamuud aan aniga bartay aad iyo aad ما شاء الله Allah u naxariisto waxaan ka codsanaynaa anaga dawladda waxaan ugu jira madax sida gudoomiyaha gobolka sida isla ducaale wasiirkeena ma sha Allah inuu abgaal isu keeno gogol u dhigo oo ka shaqeeyo sidii aan dhaqan ku heli lahaynay aad iyo aad waagi hore waxaan maqlay aasha biyo way jirta biyahan tubooyinka iyo baadiya hadda laga hela ma jirin ceelkan inaan ag fariisto u dhihi jiray anaa iskale qofka martiye waa u diidi jiray marka laba nina waxay yiraahdeen leeyahay ceel isugu yimideen haddaad ishaada oodatoon u sheeyda qaadha waa aqaan u yiri geedaan daraadayna soo martay haddii haddaan la maago hal celceliyana qof xoolaa waxay diideen bahaayma in la xirxiro qof bani aadan oo nool oo ehel laho awood ilaahay si xirxir ma yeelayso marka waxaan rabnaa waxa fayrasku ka imaan karo oo dadku garan karo oo Soomaalidnimada dhaawacayo
qof walba ha soo saantirato ha isugu yeesho waayo moogiye abgaal wixiisu calaacal maahin ee war muslim ma nahay war aan isdaba qabanna waayo warkaayo maahine xoog iyo xigmad iyo xoolo ilaahayna siiyey walaalaan leenna qofna dulmi kartana ma jirto waxa walaalahay sheegeen oo jidadka ka dhacay oo in meydguru ka dhaco la soo qaado baabuur kale haddana lagu wareejinayo dhagaxa midda baabuurna xagga laga soo rogojinayo meyd saaran yahay baabuur kale oo meydka lagu qaadi rabaa dhanka kale laga soo rogojinayo dhaqan Soomaaliyeed naqame diin Soomaaliyeed ama diin muslim naqame mid lagu ma garanaysaa lagu wada joogi karo ma noqonayso dadka oo la leeyahay waxay yihiin akhyaartii iyo madaxweynaha codsigiisa iyo waxa la soo maray nin waxa la yiraahdaa hadaa duugtay hadaa doorataa ugu dambaysa farmaajo asagu mugil la dooraay warka wiiriye warka hadda ku dhaqmaana in isdiideen asaguna waa og yahay ummaduna waa ogta in adduunka ka tambadisay iyo inuu ujeedada awal haysaan inuu yeelana asaga laga rabaa waxaan ognahay ama inala tahay dhibaatada hadda magaalada Muqdisho ka taagan ra'iisul wasaaraha madaxweynaha in si xun wax loogu sheego waxa la yiri si xun wax u sheeg siciro waa ka daran yahay haddii mas'uuliyiinta dadka been ma sheegaya shoorahay hadday si xun wax ugu sheegeen heeska hubiyaano waxaan maqalnay jidadkan xiran oo dhibaatadu ka jirto oo masiibadu ka taagan tahay oo dadka lagu bahdilayo foolxumadu ka jirto in madaxweynaha ra'iisul wasaaraha shirarka loogu sheego mudane ra'iisul wasaare jidku waa fiican yahay waa furan yahay lama celsho dadka la baaraa dadka qaylihaya waa dad macaarad oo baaritaanka diidan in la yiraahan maqalnay waa ben baaritaanka ma diidanin nabadgelyada in la sugo ma diidanin laakiin ummaddu hadday jiday marto weydo waa dhibaato ma noolaanayso nolol ma jirto jid la maro haddii la waayo nolol waa la waayo dadku wuxuu yidhaahdaa arrimahaas dadka ka hadlaya annagaa saana waa macaarad haddee dowladdu waa dowladayni laakiin dhiliilaha inaan sheegno meelaha ka jira oo dadka been mashaagayaal la leeyahay oo dowladda hoos ordaya waxay ka been sheegayaan inaan ka run sheegnan qabnaano arrintaas waxaan ka codsanaynaa in degdeg wax looga qabto in la soo farageliyo waxyaabo badanaa jira ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu bulshada har soo dhex galaano yay isku koobin madaxtooyay isku koobin bulshadoora ha dhex galaano dhibaatooyinka jiraha la socdaano dhibaatooyinka jira in dhowr ha ku arkaan yaan loo soo sheegin wadadu ma xira dadku waa dad baaritaanka diidan been waay waa been waxaas yaan laydinku sheekay baaritaanka ma diidanin nabadgelyada in la sugo ma diidanin laakiin waxaan diidanahay in islaam foolaysa jidka loo istaago islaamiga dhexdiisa ku dhasho waxaan diidanahay meyd la sido in meel la marsiiyo la waayo ilaahayna soo nagu qabano wadooyin leenna tan kale dhagxaha jidadka lagu goynayo laamigiyaa la gooyey jidcadkii loo leexalay haddii xaaladdu xumaatona waa la xiray ma nabadgelyaa mase waa nabadgelye xumo